dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland soo noqod wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal akhyaarta qiimaha badan ee naga daawanaysa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale idaacadda Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland kobci garaadkaaga barnaamijkeeni kobci garaadkaaga ayaan ku guda jirnaa haddii Allah hawada loo ogolaado tan iyo saacada Afrikada barinta ay ka gaarayso 12 fiidnimo hawadaynu ku wada jiri doonaa halkan ayaad qaybta hore ee barnaamijka kaga qayb qaadan doontaan khadka taleefanka oo aad naga soo garaacaysaan telefoonka 250 eber 1 dhinaca fariimahana aad qaybta dambe ee barnaamijka nagula wadaagaysaan aad taabanayso xidig 38 afargees oo markaasi su'aasha markaasi aanu taaganahay ee ku soo baxayso isla markaana jawaabta aad halkaasi ka helayso aad ku dirayso haddii aad ku guuleysato su'aasha jawaabteeda waxaad heli doontaa abaalmarin lacageed oo ay ku soo dirayso shirkadda Telesom sidoo kale khadka taleefanka haddii nasiib aad u yeelato in aad noqoto ka qaybgalayaasha barnaamijkan habeennimadkan caawa ee kobci garaadkaaga isagana sidoo kale oo su'aashaasi lagu soo dhigo aad garato waxaad sidoo kale heli doontaa abaalmarinta ay shirkadda Telesom inoogu tala gashay waxaynu eegi doonaa khadadka taleefanka oo aynu ku furan doono barnaamijkeena qaybta hore bal daawadaha ama dhageystaha nasiibka u yeeshaa inuu nagala qayb qaato barnaamijku noqdo qofka ugu horeeya aynu soo dhaweyno halo salaamu calaykum وعليكم السلام soo dhawo walaal Ramadaan Kariim شباب مبارك magacaagii halkaad nagala soo hadlayso magacaygu waxa weeyaan Sikri Cabdullaahi Bar magacaaga walaal iigu celi Sikri Cabdullaahi Bar Sakariya Cabdullaahi Sakariyow barnaamijka miyaad daawanaysaa mise waad dhageysanaysaa wala waan daawanaya barnaamijka TV-ga qarankaad ka daawanaysaa halkeed joogtaa Sakariyow magaalada Hargeysa magaalada Hargeysa joogtaa waa hagaag waa ku bilaabi doonaa su'aalaha maxaad rajaynaysaa wallahi nasiib aan rajaynaya waa hagaag su'aashaadu waxay ku oranaysaa sheeg mid kamid ah xuquuqda wadadu ay leedahay sheeg mid kamid ah xuquuqda ay wadadu leedahay doorashada koowaad waxay ku oranaysaa in indhaha la laabto doorashada labaad waxay ku oranaysaa in la dhex fadhiisto halka doorashada saddexaad ay ku oranayso in laga dheeraado may maqlaysaa walaal aan ku maqlaya haddii aan kuugu celiyo su'aasha waxay ku oranaysaa su'aashaadu sheeg mid kamid ah xuquuqda ay wadadu leedahay doorashada koowaad waa in indhaha la laabto doorashada labaad waa in la dhex fadhiisto doorashada saddexaadna waa in laga dheeraado doorashada saddexaad oo in laga dheeraado baynu wada eegi doonaa waa hagaag waan ka xunahay doorashada koowaad ayay sax ku ahayd waan rajaynayaa barnaamijyada dambe intaad nagala qayb qaadato inaad ku guuleysan doonto aan eegno daawadaha kale ama dhageystaha kale ee ku jira khadka taleefanka halo salaamu calaykum hello hello عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم رمضان مبارك ورمضان مبارك barnaamijkii kobci garaadkaaga ku guda jirtaa magacaagii halkaad nagala soo hadlayso waa Ismaaciil Maxamuud oo kala soo hadlaya Hargeysa Ismaaciil Maxamuud oo Hargeysa kala soo hadlaya Ismaaciil barnaamijka miyuu dhageysanayaa mise uu daawanayaa waan daawanayaa TV-ga qarankaad ka daawanaysaa halkee aad maxaan ku dhahday barnaamijka ma markii ugu horeysay aad ka qayb gashaaba mar horaan ka qayb gashaabaan Ramadan ka dhexdeeda maalintii habeenkii ugu horeysay dabadeedna ma ku guuleysatay abaalmarintii waan ku guuleystay habeenka xaawana maxaad isleedahay aad baad mahadsan tahay guul baanu kuu rajaynaynaa waanu kuu bilaabi doonaa su-aashaada su-aashaadu waxay ka odhanaysaa kuma ayuu ahaa ninkii baddu liqday ee ilaahay jidhkiisa badbaadiyey si loogu cibro qaato kumuu ahaa
ninkii baddu liqday ee ilaahay jidhkiisa badbaadiyey si loogu cibro qaato. doorashada koowaad waxay ka odhanaysaa haamaan, doorashada labaad waa fircoon, doorashada saddexaadna waa qaaruun. walaal waa fircoon fircoon buu ahaa. waa doorashada labaad ood ku adkaysanaysaa. waa hagaagood ku guulaysatay. hambalyo baanu ku leenahay. hambalyo aad baad u mahadsan tahay. ayna eegno dadweynaha kale jecel barnaamijka inay ka qayb qaataan. hallo walaal salaamu calaykum. iska gaabi ee aaladaad nagala socoto si aynu isku maqalo si wanaagsan. magacaagii halkaad nagala soo hadlayso. tuma sundusay soo dhawow. halkaad joogtaa? magaalada Hargeysa caasimada Jamhuuriyadda Somaliland. sundusay barnaamijka miyaad dhegeysanaysa mise oo daawanaysa? aad baad u mahadsan tahay. su-aashaadaynu eegi doonaa. barnaamijka hore ma uga qayb qaadatay? nasiib wanaagsan baanu ku leenahay. su-aashaad waxay ka odhanaysaa kumaa curiyey maansada go'doon. kumaa curiyey maansada go'doon. doorashada koowaad waa ibraahim gadhle, doorashada labaad waa axmed ismaaciil diiriye qaasim, doorashada saddexaadna waa ismaaciil mire. haddii aan kuugu celiyo su-aashaad waxay ka odhanaysaa kuma ayaa curiyey maansada go'doon. doorashada koowaad waa ibraahim gadhle, doorashada labaad waa ismaaciil diiriye qaasim, doorashada saddexaadna waa ismaaciil mire. ismaaciil miraad filaysaa? nasiib wanaagsan. waanu ka xunnahay. axmed ismaaciil diiriye qaasim ayaa maansada go'doon lahaa. waan rajaynaya barnaamijyada dambeed nagala qayb qaadato insha allah inaad ku guuleysan doonto. hallo salaamu calaykum. soo dhawow walaalo. calaykum salaam barakaatu. magacaagii halkaad nagala soo hadlayso. aan ka soo hadlay walaal. hee aan ka soo hadlay halkaan buurta kala jeexan kantaroolka buurta kala kantaroolka buurta kala jeexan agteeda. magacaaga xamse qadas. yaa xamse qadas. xamse khaalid. xamsow soo dhawow ku soo dhawow barnaamijkii kobci garaadkaaga. waan ku soo dhawow. barnaamijka ma idaacaddaad kala socotaa mise telefishinka? idaacadda kala soco. idaacadda radio Hargeysaad ka dhegeysanaysaa. barnaamijka hore ma uga qayb qaadatay? waa hagaag. ma ku guulaysatay? nasiib wanaagsan baanu kuu rajaynaynaa caawayo inaad abaalmarinta telefoonkaaga kusoo dhacdo. waa hagaag. su-aalahaanu kuu bilaabi doonaa. su-aashaad waxay odhanaysaa kuma ayuu ahaa nebigii ilaahay u sakhiray dabaysha. kuma ayuu ahaa nebigii ilaahay u sakhiray dabaysha. doorashada koowaad waa daawud calayhi salaam, doorashada labaad waa sulaymaan calayhi salaam, doorashada saddexaadna waa saalax calayhi salaam. ma kuugu celiyaa? maya walaal waxaan ka doorashada labaad. doorashada labaad oo sulaymaan calayhi salaam. nasiib wanaagsan baan kuu rajaynaynaa. hambalyo waa sax jawaabtaasi. aad baad ugu mahadsan tahay ka qaybgalka barnaamijka. waan rajaynayaa in daawadayaasha kalena ay iyaguna sidaas oo kale uga faa'iidaystaan. hallo salaamu calaykum. hallo salaamu calaykum. calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhawow walaalo. waa cabdiraxmaan oo Hargeysa ka soo hadlay. cabdiraxmaan oo soo dhawow. halkaad joogtaa? Hargeysa. magaalada Hargeysaan jooga. barnaamijka miyaad dhegeysanaysaa mise waad daawanaysaa? waan dhegeysanaya. idaacadda radio Hargeysaad ka dhegeysanaysaa? waa hagaag. barnaamijka hore ma uga qayb qaadatay? waan uga qayb qaadatay. dabadeedna ma ku guulaysatay mise? waan ku guulaystay. caawana maxaad leedahay? guul baan rajaynaya. guul baad rajaynaysaa. cabdiraxmaan oo Hargeysa jooga. annaguna guul baanu kuu rajaynaynaa. waan ku bilaabi doonaa su-aalahaaga. waa hagaag. su-aashaad waxay odhanaysaa dagaalkii fujaar muxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam qabanayey? dagaalkii fujaar muxuu nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee qabanayey? doorashada koowaad wuu maqnaa, doorashada labaad dagaalka ayuu ku jiray, doorashada saddexaadna leebabka
telefoonka ayuu adeeradii u dhiibayey waanu ka xunahay daawadahaasi ama dhegaystahaasi idaacadda radio hargeysa barnaamijka kala socday oo su-aalihii loo bilaabay khadka teleefonka ka go-ay waan rajaynaya inu mar dambe kuu soo galood nagala qayb qaadato halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhawow walaalo kusoo dhawow barnaamijkii kobci garaadkaaga waan ku dhawaa walaal magacaagii halkaad nagala soo hadlayso magacaygu waa ridwaan oo kala soo hadlaya degmada sheekh salmaan ridwaan oo magaalada sheekh ee gobolka saaxil jooga haa ka waran magaalada sheekh caawa sideed ku tihiin roob ma idin helay haa una helay maasha allah barnaamijka miyaad dhegaysanaysay mise waad daawanaysaa waan daawanaya telefishinka qarankaad ka daawanaysaa haa hore ma uga qayb qaadatay may waa hagaag waan rajaynaya habeenkii ugu horreysaad ka qayb qaadato in aad ku guulaysato waan ku bilaabaynaa su-aashaad waxay ku odhanaysaa sheeg mid ka mid a waqtiyada la baneeyey in been la sheegi karo sheeg mid ka mid a waqtiyada la baneeyey in been la sheegi karo doorashada koobaad waa marka la safraayo doorashada labaad waa marka cid la heshiisiinayo doorashada saddexaadna waa marka wax la beeraayo walaal waxa weeyaan su-aashaagdu sheeg mid ka mid a waqtiyada la baneeyey in beenta la sheegi karo beenta doorashada koobaad waxay ku odhanaysaa marka la safraayo doorashada labaadna waa marka cid la heshiisiinayo doorashada saddexaadna waa marka wax la beerayo may maqlaysaa ridwaanow haa ta labaad doorashada labaad oo in cid la heshiisiinayaa may doorashada saddexaad waa hagaag hambalyo waan ka xunnahay doorashada saddexaad ayaa tidhi walow aada markii hore doorashada labaad tidhi nasiib wanaagsan aynu eegno dadweynaha kale ee khadka teleefonka ku jira halo asalaamu calaykum walaal adigoo raalliya waxaad iska naaqusi doontaa aaladaad nagala socoto waaya si aan isku maqlo si wanaagsan oo aada barnaamijka si wanaagsan uga qayb qaadato waaya magacaagii halkaad nagala soo hadlayso yaxya axmed oo ka soo hadlaya magaalada hargeysa yaxye axmed oo nagala soo hadlaya magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda sheedaha xaafadda sheedaha barnaamijka miyaad dhegaysanaysaa walaal mise waad daawanaysaa waan daawanaya mene waa hagaag barnaamijka horba uga qayb qaadata may waa markii kuugu horreysay haa nasiib wanaagsan baanu kuu rajaynaynaa insha allah su-aashaadu waxay ku odhanaysaa xinjir buu xididnimo ku doorsaday dhacdadani waxa ay ka hadlaysaa xinjir buu xididnimo ku doorsaday dhacdadani waxa ay ka hadlaysaa doorashada koowaad oo saamaxaada doorashada labaad oo argoosiya iyo doorashada saddexaad oo jacayla weli waad is dhegaysanaysaay waxa weeyaan argos argoosiga xinjir buu xididnimo ka doorsamee haa waa jacayl ma jacayl ba waa hagaag aan kula eegna waan ka xunnahay su-aashaasi kumaad guulaysan saamaxaadda ayay ahayd waan rajaynayaa marar dambe intaad nagala qayb qaadato inaad ku guulaysan doonto daawadayaasha kale iyo dhegeystayaasha kale barnaamijka ku guda jira aynu siino waqtigooda halo asalaamu calaykum halo barnaamijkii kobci garaadkaaga ayaynu daawadayaal iyo dhegeystayaal ku guda jirnaa ramadaan kariim meel kasta oo maqalka yaga iyo muuqaalka iyagubu idinka soo gaadhayo qaybtii hore barnaamijkaynu ku guda jirnaa oo khadka teleefonka aad kaga qayb qaadanaysaan daawadayaasha iyo dhegeystayaasha dib nagaga soo biiray waxaad barnaamijka kaga qayb geli kartaan khadka teleefonka ee 250 eber 122 halka qaybta dambe ee barnaamijkuna ay tahay qaybta fariimaha oo taabanayso xidig 38 afar gees oo aad jawaabta dooranayso soo dhawaadaan leenahay daawadayaasha iyo dhegeystayaasha jecel inay barnaamijka nagala qayb qaataan
oy ku guulaystaan abaalmarinta shirkadda isgaadhsiinta ee telesom ay ugu tala gashay dadweynaheeda ay jeceshahay in ay barnaamijka ka qayb qaataan inay ku abaalmariso. halow asalaamu calaykum. وعليكم السلام. soo dhawow walaalo barnaamijkii kobci garaadkaagaad ku jirtaa. waa ku jiraa. waad ku jirtaa haa. magacaagii halkan nagala soo hadlayso. magacaygu waa cumar aadan cismaan idinkala soo hadlaya degmada sheekh. cumar aadan cismaan oo degmada sheekh caawa qofkii labaad ee degmada sheekh nagala soo hadlaa tahay. soo ma haahey caawa baan tegey waa nasiibka waaniga hargeysaan ka tegey. maasha allah caawa sheekh way rooban tahay. shiiqoo roobku helay nimcaan ku sugannahay. maasha allah. barnaamijka ma idaacadaad ka dhegaysanaysaa walaal mise telefishanka? tv baan ka daawanaya markaasaan weliba aada uga soo celceliyey weliba. maxaad ku soo celcelisay? inaan kusoo teleefonka waa hagaag nasiib wanaagsan baanu ku leenahay su-aalahaanu ku bilaabi doonaa. ibow way waa hagaag su-aashaadu waxay odhanaysaa sheeg nebigii uu dhalay nebi sakariye calayhi salaam. sheeg nebigii uu dhalay nebi sakariye calayhi salaam. doorashada koowaad waxay ka odhanaysaa ciise calayhi salaam. doorashada labaad waa muuse calayhi salaam. doorashada saddexaadna waxay ka odhanaysaa yaxye calayhi salaam. nebigii uu dhalay nebi sakariye waa nebiyullaahi yaxye waana ku eegi doonaa. sidaasi ayay sax ku tahay. hambalyo waanu ku hambalyeynaynaa adiga iyo dadweynaha kale ee barnaamijka nagala qayb qaatay ee ku guulaystay su-aalihii halka kan aanu ka weydiinay. weli dadweynaha ku jira khadka teleefonka inuu yeedhina. halo asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhawow walaalo barnaamijkii kobci garaadkaaga ku soo dhawow. waan dhawey walaalo. magacaagii halkaad nagala soo hadlayso. walaalo waa axmed ismaaciil oo jooga hargeysa. axmed ismaaciil oo hargeysa jooga. oo barnaamijka daawanaya mise dhegeysanaya? walaalo waa dhegeysanaya. idaacadda radio hargeysaad ka dhegeysanaysaa? barnaamijka hore ma uga qayb qaadata? kol waan adigu dhegeystay laakiin muu soo gelin. kumuu soo gelin. waa hagaag caawa ayaad nasiib u yeelatay. maxaad rajaynaysaa? waxaan rajaynayaa dee inaan guulaysto arsiiya. annaguna guul baanu ku rajaynaynaa. su-aashaadaanu eegi doonaa. haye walaal. waxba yaanu ii kala qararhin qoolashaan dega ereygaa ii kala qararhin waa doorashada koowaad ii kala siin. doorashada labaad ii kala xadayn. doorashada saddexaadna ii kala furfurin. waxba yaanu ii kala qararhin qoolashaan dega ereygaa ii kala qararhin waxa uu la macno yahay ii kala siin, ii kala xadaynin iyo ii kala furfurin. waxaan u malaynayaa su-aasha haddaan isku dayo jawaabteeda su-aasha saddexaad oo ii kala furfurin. ii kala furfurin. waanu kula eegna jawaabta. waan ka xumahay. doorashada labaad ee ii kala xadaynin ayay ahayd. waan rajaynayaa in barnaamijyada dambe aada nagala qayb qaadan doonto oo aada markaasi ku guulaysan doonto abaalmarinta shirkadda telesom ay ugu tala gashay dadweynaha ku xidhan barnaamijka kobci garaadkaaga. waan rajaynayaa dadweyne badan oo aan ka qayb qaadanin barnaamijka oo iyagoo ama daawanaya ama dhegeysanaya inay ka faa'iidaysanayaan oo aqoon kororsi fara badan barnaamijkan ka heleen oo su-aalahaasi jawaabahooda ay barteen. halo asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhawow walaalo magacaagii halkaad nagala soo hadlayso. waxaan dhawey walaalo waa Samiire Axmed oo nagala soo hadlaysa magaalada Hargeysa. Samiire barnaamijka miyay dhegeysanaysaa mise way daawanaysaa? waan dhegeysanaysaa walaalo. idaacadda radio Hargeysaad ka dhegeysanaysaa? barnaamijkan hore ma uga qayb qaadatay Samiire? may walaalo ka qayb qaaday. habeenkii kuugu horeeyay. nasiib wanaagsan baanu ku leenahay. annaguna su-aashaadan ku bilaabi doonaa. baryihii hore maryaha ay dumarku xidhan jireen waxaa ka mid ahaa doorashada koowaad oo dallada, doorashada labaad oo jilbaaba, doorashada saddexaad oo saddex dhubooda. haddii aan kuugu celiyo
su-aashaad waxay odhanaysaa beryihii hore maryaha ay dumarku xidhan jireen waxaa ka mid ahaa doorashada koowaad oo dallada, doorashada labaadna waa jilbaab, doorashada saddexaadna waa 3 dhidood. may maqlaysaa Samiire? Waan ku maqlayaa. Saddexaad. oo 3 dhidooda. nasiib wanaagsan baan ku rajaynaynaa. hambalyo waad garatay su-aashaasi. aynu eegna dadweynaha kale ee khadka taleefanka barnaamijka kaga qayb qaadanaya. weli qaybtii koobaad ee barnaamijkeenu ku guda jirnaa. rabadaan kariim intiina nagu soo biirtay barnaamijkii kobci garaadkaaga ayaan ku guda jirnaa. wacanoo wanaagsan baan idin leenahay. soo dhawow dhegayste ama daawade. haye walaal macaane waan ku soo dhowahay. walaalo magacaagii halkaad nagala soo hadlayso? waxaan ka soo hadlay walaal October. xaafadda October ee magaalada Hargeysa. barnaamijka walaal miyaad dhegaysanaysaa mise waad daawanaysaa? waan daawanayaa gacalisaado xijaab silfara xidhan. aad baad u mahadsan tahay. barnaamijka hore ma uga qayb qaadatay? mii walaal macaani badan baan isku dayay laakiin waa caawa lakiga soo gala. caawa kuu soo galay. caawa nasiib wanaagsan baanu ku leenahay. su-aashaadaan ku eegi doonaa. magacaaga maxaad iigu sheegtay? muuna walaalo muuna oo October joogta magaalada Hargeysa. waa hagaag muuna aad baad mahadsan tahay. su-aashaadaynu eegaynaa. su-aashaad waxay ku odhanaysaa kuma ayuu ahaa nebigii la amray inuu dadka xajka ugu yeedho? kuma ayuu ahaa nebigii la amray inuu dadka xajka ugu yeedho? doorashada koobaad Ismaaciil calayhi salaam, doorashada labaad Ibraahim calayhi salaam, doorashada saddexaadna waa Zakariya calayhi salaam. munay may maqlaysaa? su-aasha ma kuugu celiya? kuma ayuu ahaa nebigii la amray inuu dadka xajka ugu yeedho? doorashada koobaad waa xaweeyi Ismaaciil, nebi Ismaaciil calayhi salaam. doorashada labaadna waa nebi Ibraahim calayhi salaam. doorashada saddexaadna waa Zakariya calayhi salaam. Ibraahim. waa hagaagaan kula eegno. hambalyo munaay waad saxday. su-aashaasi jawaabteedu waa Ibraahim calayhi salaam. wuxuu ahaa nebigii dadka xajka ugu yeedhay nebi Ibraahim calayhi salaam. naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. aynu eegno dadweynaha kale khadka taleefanka ku jira. hello asalaamu calaykum. waa hagaag barnaamijkii kobci garaadkaaga oo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland. sidoo kale waxaad nagala socotaan idaacadda radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Somaliland. qaybtii koobaad ee barnaamijka ee aad kaga qayb qaadanayseen khadka taleefanka ayaynu ku guda jirnaa. intiina cusub ee nagu cusub ee hadda barnaamijka ama daawanaysa ama dhegeysanaysa waxaad naga soo garaaci kartaan telefoonka uu lambarkiisu yahay 250 eber 122. sidoo kale qaybta dambe ee barnaamijka waxaad kaga qayb qaadan doontaan xidig 38 4 gees oo aad markaasi su-aashaanu markaa marayno jawaabteeda ku diri doonto fariin. dadweynaha khadka taleefanka ku jira baynu u baaqi doonaa. waa hagaag waynu isku soo noqon doonaa daawadayaal iyo dhegaystayaal qadar xayeysiisa oo adeegyada shirkadda Telesom nagula nasta. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale ayaynu isugu soo noqonay barnaamijkeennii kobci garaadkaaga Ramadaan Kariim meel kasta oo maqalkeeda iyo muuqaalkeeda Hello. السلام عليكم. السلام عليكم. barakaatu Ramadaan Kariim ku soo dhaw barnaamijkii kobci garaadkaaga waan ku dhawahay walaal in yar codkaaga kor igu qaad hayo walaal magacaagii halkaad nagala soo hadlayso walaal waxaan kaala soo hadlayaa Gabiley magaalada Gabiley magacaagana nimco khadar maxamuud walaal nimco khadar maxamed maxamuud nimco barnaamijka miyaad dhegeysanaysaa mise waad daawanaysaa walaal daawanaya TV-ga qarankaad ka daawanaysaa walaal TV-ga qaranku ma wax laga qadaabaa barnaamijka hore miyaad u daawatay ama u dhageysatay ama uga qayb qaadatay walaal waan soo qaracsay laakiin dawladdu soo gelin caawu kuu soo galay maxaad dareemaysaa walaal aad baan faraxsanahay aad baad ugu faraxsantahay inaad ka qayb qaadato barnaamijka kobci garaadkaaga nasiib wanaagsan baan anaguna ku rajaynaynaa iyo in aad abaalmarintii shirkadda Telesom caawa ay ku soo gaadho insha Allah su'aashaadana ku bilaabi doonaa su'aashaadu waxay ka odhanaysaa cudurrada idaha ku dhaca waxaa ka mid ah doorashada koowaad oo hulumbe ah doorashada labaad oo dhugato ah iyo doorashada saddexaad oo dabaruub haddii aan kuugu celiyo cudurrada idaha ku dhaca waxaa ka mid ah doorashada koowaad waa hulumbe doorashada labaad waa dhugato halka doorashada saddexaad ay tahay dabaruub walaal waxaan ku nasiibsanahay saddexaad doorashada saddexaad oo dabaruuba hagaagan ku eegi doonaa waan ka xunnahay waxaa ku dhaca cudurka hulumbaha la yidhaahdo waad ku mahadsan tahay ka qaybgalkaad barnaamijka nagala qayb gashay waan rajaynayaa barnaamijyada dambe inaad ku guulaysan doonto halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaalin yar codkaaga kor u qaad magacaagii halkaad nagala soo hadlayso codkaaga aada uma maqlo in yar kor u qaad hadda waan ku maqlayaa waa intaasood in yar kusii darta uun si ayna aada isugu maqlo haahee xaafadda isha boorame magacaagana nasriinay soo dhawow barnaamijkii kobci garaadkaaga ku soo dhawow barnaamijka miyaad dhegeysanaysay mise waad daawanaysay waad daawanaysay hore ma noogala qayb qaadatay barnaamijka waa markii ugu horreysay
caawa markaad soo garaacday markiiba miyuu kuu soo galay waad nasiib wanaagsan tahay dadweyne badan baa iyagu ku daalay su-aashana inaad kusaa ugu guulaysan doontaan rajaynayaaye su-aashaad waxay ka odhanaysaa sheeg mid ka mida tiirarka gabagabaysiga sheeg mid ka mida tiirarka gabagabaysiga doorashada koowaad waa socodka doorashada labaad waa masaxaadda wejiga doorashada saddexaadna waa xuska ilaahay haddii aan kuugu celiyo su-aashaadu waxa weeye sheeg mid ka mida tiirarka gabagabaysiga doorashada koowaad waa socodka doorashada labaad waa masaxaadda wejiga doorashada saddexaadna waa xuska ilaahay maxaa tidhi number 2 iyo doorashada labaada nasiib wanaagsan baanu ku rajaynaynaa waa sax jawaabtaasi waad ku guulaysatay hambalyo 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 ayaanu ku leenahay hello soo dhawaada hello hello asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu iska gaabi aaladaad igala socoto hadday tahay telefishan ama idaacad fiicantii walaalo waan fiicanahaye horta iska gaabi qaranka somaliland telefishanka in yar iska naaqo si aad aniga ii maqasho oo aad su-aashaada u ogaato hay walaal hay 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 ma iska naaqustay walaal iska naaqustay magacaagii halkaad nagala soo hadlayso walaal kayse axmed maxamed abdulhadaah kayse axmed maxamed xaafadda sheekh nuur xaafadda sheekh nuur baad joogtaa kilalka he barnaamijkana waad daawanaysaa waa hagaag su-aashaadaan ku eegi doonaa su-aashaadu waxay ka odhanaysaa sheeg ciyaartooygii ugu da-da weynaa ee gool ka dhaliya koobka adduunka waa sheeg ciyaartooygii ugu da-da weynaa ee gool ka dhaliya koobka adduunka oo doorashada koobaad ay ka odhanayso roger miller doorashada labaad roger miller doorashada koobaad waa roger miller halka doorashada labaad ay ka odhanayso cano doorashada saddexaadna romario waa number 2 cano hagaagaana ku eegno waan ka xunnahay roger miller ayaa ahaa ciyaartooygii ugu weynaa ee goolasha ugu badan ka dhaliya koobka adduunka waan rajaynayaa in jawaabtaasi aad ka faa'iiday oo mar dambe haddii ay kusoo marto aanad garan waayi doonin halo asalaamu calaykum soo dhawo walaalo barnaamijkii kobci garaadkaagaad ku jirtaa waan ku dhawo walaalo magacaagii halkaad nagala soo hadlayso walaalo hargeysan kasoo hadlaya magacaaguna ayaanle maxamed walaalo ayaanle axmed ayaan low soo dhawowo barnaamijka miyaad daawanaysaa mise waad dhegeysanaysaa waan dhegeysanaya walaalo idaacadda radio hargeysaad kala socotaa si fiican barnaamijka hore ma uga qayb qaadatay may walaalo sanadkan weeya caawa intee leeg baad isku dayday inaad barnaamijka ka qayb qaadato wallaahi dhowr jeer deedna haddaad heshay jawaabta su-aashana inaad sidaa u heshaan rajaynaya ayo su-aashaadan ku eegi doonaa su-aashaadu waxay ka odhanaysaa faraska isaga oo aan la heensaynin la fuulo waxaa loo yaqaanaa faraska isaga oo aan la heensaynin la fuulo waxaa loo yaqaanaa doorashada koowaad oo leedo ah doorashada labaad oo lukansia doorashada saddexaadna waa liid haddii aan kuugu celiyo su-aashaasi waxay ka odhanaysaa faraska isagoo aan la heesaynin la fuulo waxaa loo yaqaanaa doorashada koowaad oo leedaa doorashada labaad oo lukansia iyo doorashada saddexaad oo liida may maqlaysa leedo ma ku adkaysanaysaa waa hagaag sidaasi ayay sax ku tahay su-aashaa jawaabteedu waa leedo waad garatay hambalyo aanu ku leenahay hambalyo hambalyo aynu eegno dadweynaha kale jecel barnaamijka inay nagala qayb qaataan halo asalaamu calaykum codkaaga adigoo in yar u dallacaya caa waxaad moodaa habluhu inay ka cod gaaban yihiin ragga soo dhawo walaalo waan dhawahay magacaagii halkaad nagala soo hadlayso
halo imise qof baa ila hadlaya halo si fiican baan kuu maqlayaa halo walaala si fiican baan kuu maqalnaaye barnaamijkii kobci garaadkaagaad ku guda jirtaa ee magacaagii halkaad ka soo hadlayso waa Khadir Maxamuud walaalo ka soo hadlaya gobolka Shabeelle Maroodijeex ka tirsan gobolka maxay Maroodijeex gobolka Maroodijeex oo halkeeya Jalaalo Jaleelo haa hee Jaleelaad joogtaa duleedka magaalada Hargeysa barnaamijka miyaad dhegeysanaysaa mise waad daawanaysaa waan dhegeysanaya walaalo idaacadda radio Hargeysa aad kala socotaa barnaamijka hore ma uga qayb qaadatay may walaalo may nasiib wanaagsan baan ku leenahay su'aashaadaan ku eegi doonaa su-aashaadu waxay odhanaysaa imise sannadood ayuu nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dadka hoos ugu yeedhaayay imise sannadood ayuu nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dadka uu hoos ugu yeedhayay doorashada koowaad waa 13 sannadood doorashada labaad waa 10 sannadood doorashada saddexaadna waa 8 sannadood haddii aan kuugu celiyo su-aashaadu waxay odhanaysaa imise sannadood ayuu nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dadka hoos ugu yeedhaayay waa doorashada koowaad oo 13 sannadooda doorashada labaad oo 10 sannadooda halka doorashada saddexaadna ay ka tahay 8 sannadood waa talabaad doorashada labaad magacaaga in yar iigu celi walaal adigoo raalliya Khadir Maxamuud walaalo Khadir Maxamuud aad baad u mahadsan tahay waan ka xunnahay Khadir Maxamuud oo su-aashaasi jawaabteedu waa doorashada koowaad oo 13 sannadood waan rajaynayaa barnaamijyada dambe in aad nagala qayb qaadan doonto oo garan doonto abaalmarinta Telesom-na aad heli doonto hello 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 soo dhawaada Ramadaan Kariim barnaamijkii kobci garaadkaagaynu ku guda jirnaa daawadayaal iyo dhageystayaalba hello assalaamu calaykum soo dhawo walaalo kobci garaadkaagaad ku jirtaa magacaagii halkaad nagala soo hadlayso may maqlaysaa in yar raalli aha walaal codkaaga kor noogu qaad kuma maqalno weli kor u qaad codkaagaa nagu gaaban imika si fiican baa kuu maqlayaa magacaagii halkaad joogto walaal hay magaalada Hargeysa joogtaaye magacaaguna Sharmaarke Sharmaarko barnaamijka ma dhegeysanaysaa mise waa daawanaysaa barnaamijka waan daawanayaa TV-ga qarankaad ka daawanaysaa su-aashaadan Sharmaarko ku eegi doonaa nasiib wanaagsanna waanu kuu rajaynaynaa su-aashaadu waxay ka odhanaysaa kuma ayaa curiyey maansada hablaha geeska kuma ayaa curiyey maansada hablaha geeska doorashada koowaad waa Gaariye doorashada labaad waa Hadraawi doorashada saddexaadna waa Xasan Ganay haddii aan kuugu celiyo kuma ayaa curiyey maansada hablaha geeska doorashada koowaad waa Gaariye doorashada labaad waa Hadraawi doorashada saddexaadna waa Xasan Ganay habla geela dhaqi kara miyay talo marinayaa Hadraawi hagaag Hadraawi miyaad ku adkaysanaysaa Sharmaarko miyaad u fikiraysaa mise Hadraawi baynu ku eegnaa hello Sharmaarke Sharmaarko maxaafadii baad su-aasha weydiinaysaa hore u dhaqso adigoo raalliya si dadweynaha kale jecel barnaamijka inay ka qayb qaataana aynu waqti u siino Gaariye waa hagaag aad baan uga xunnahay Hadraawiyood markii hore dul taagnayd
ayay sax ku tahay oo curiye maansadaasi hablaha geeska. halo salaamu calaykum. halo halo soo dhowo walaalo. calaykum asalaam sila barakaatu. ramadaan kariim. waan dhawaay. magacaagii halkaad nagala soo hadlayso. waa Sakariya silo Muqdisho kala soo hadlayso. halkeed igala soo hadlaysaa? raalli ha walaalo, halkeed igala soo hadlaysaa? weli maanaan garanin halkaad nagala soo hadlayso. oo halkee ku taalla? arabsiyo. magacaagana? sakariye cismaan. sakariyo barnaamijka miyaad dhegeysanaysaa mise tv-gaad ka daawanaysaa? halo sakariye. idaacadda radio hargeysaad ka daawanaysaa ayaad ka dhegeysanaysaa? sakariye waxaan kaa codsanayaa haddii allaha awoodda la ogolaado intaad khadka taleefonka nagula jirto telefoonka inaad aynu iska maqalood iska gaabiso idaacadda kaag baxaysaa adigoo raalliya ama ka durug. sakariye su-aashaadaynu eegeynaa. su-aashaad waxay ku odhanaysaa ereyga gabraar waxa uu macnihiisu yahay doorashada koobaad waa dadaal, doorashada labaad waa ugaadhsi, doorashada saddexaadna waa qasbid. ereyga gabraar waxa uu macnihiisu yahay doorashada koobaad waa dadaal, doorashada labaad waa ugaadhsi, halka doorashada saddexaadna ay ka tahay qasbid. may maqlaysaa sakariye? ereyga gabraar su-aashaadu waxa weeyaan ereyga gabraar waxa uu macnihiisu yahay gabraar. talabaad oo ugaadhsiya. waa hagaag. waa sax jawaabtaasi. hambalyaanu ku leenahay. hambalyo wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal waxaynu soo gaadhnay qaybtii labaad ee barnaamijka oo aad kaga qayb qaadanayseen dhinaca fariimaha. haddii aad jeceshahay inaad nagala qayb qaadato barnaamijka waxaad taabataa xidig 384 gees. markaasi su-aasha aanu taagannahay baa kuu soo baxaysa. isla jawaabta aad u garato inay saxda ahayd ayaad u diraysaa. dabadeedna sidaasi ayaad haddii ay tahay ku helaysaa abaalmarinta shirkadda Telesom oo aad noqoto qofka ugu horeeya ee u hordira seerfarka. qadar xayeysiisa oo adeegyada shirkadda Telesom ayaynu haatan idinku soo dhaweynaynaa. dib aynu isugu soo noqon doonaa. aqoon maal waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka. aqoon maal waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka, geeska, caalamka iyo ciyaaraha. sidoo kale waxaad kala socon kartaa barnaamijyo waxtar leh sida caafimaadka, tiknoolajiyadda, dhacdooyin cajiiba, maqaallo xiiso leh, qormooyin faa'iido leh, siirada islaamka, axaadiis, isbedelada badeecadaha iyo ascaarta. istijaabi waa barnaamij waxbarasho oo ay shirkadda Telesom ugu tala gashay kobcinta akhriska iyo qoraalka bulshada. layliye waa barnaamij waxbarasho oo loogu talagalay ardayda dugsiyada dhexe iyo sare. waa barnaamij uu ardaygu ku tijaabin karo aqoontiisa. si aad u isticmaasho adeega aqoon maal waxaad moobilkaaga qaybta fariimaha ku qoraysaa hadba isticmaalka barnaamijka ama warka aad xiisaynayso adiga oo qoraya ereyga loo soo gaabiyey kadibna u dir 150. e-fatwa waa barnaamij ay macaamiishu kala socdaan casharo diini ah oo maalinle ah sidoo kalena ay soo weydiin karaan su-aalaha diiniga ee ay qabaan oo ay uga jawaabayaan culimada waaweyn ee dalku. ereyga maantu waa barnaamij lagu barto luqadda ingiliishta iyada oo tusaalayaasha iyo sharaxaaduhu ay ku baxayaan fariimo dhisaya shakhsiga qof ahaan iyo akhlaaq ahaanba. waa hagaag soo dhawaada daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka iyo sidoo kale dhageystayaasha aanu jecel lahay ee naga dhageysanaya idaacadda radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somaliland. isu soo noqod wanaagsan
mar kale iyo qaybtii labaad ee barnaamijkeena aad kaga qayb qaadanayseen dhinaca fariimaha. haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato barnaamijka kobci garaadkaaga waxaad isticmaalaysaa xidig 38 gees oo markaasi aad jawaabta aad u garato inay tii saxda ahayd u dirayso. waynu gudageli doonaa oynu eegi doonaa su-aasha ugu horeysa iyo cidda nasiibu yeelata. su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka kobci garaadkaaga qaybta fariimuhu waxay ku odhanaysaa intee in leeg in ka badan awoodeeda ayay qaadi kartaa quraanjadu. intee in leeg in ka badan awoodeeda ayay qaadi kartaa quraanjadu. doorashada koobaad waa in ka badan 30 jeer, in ka badan 50 jeer, in ka badan 10 jeer. oo doorashada saddexaad haddii aan idinku celiyo su-aasha waxay odhanaysaa intee in leeg in ka badan awoodeeda ayay qaadi kartaa quraanjadu. waa doorashada koobaad oo in ka badan 30 jeera, doorashada labaad oo in ka badan 50 jeera, iyo doorashada saddexaad oo in ka badan 10 jeera. waxaan filayaa qaar badan oo idinka midi in ay mar hore la boobeen fariintaasi oo ay mar horeba direen, balse waxaynu eegi doonaa cadadka dadka. su-aashaasi waxay sax ku tahay in ka badan 50 jeer ayay qaadi kartaa awoodeeda quraanjadu. waan rajaynayaa in badan oon isku dayin inay ka faa'iidaysatay oo ay su-aashaa jawaabteeda heshay. intiinii isku dayday su-aashaasi waxaa kasoo jawaabay 23% halka 77% intiinii isku dayday aanay ka jawaabin su-aashaasi siday saxda ku ahayd. haddaba 23% inta kasoo jawaabtay aynu eegno qofka isagu nasiibka u yeeshay inuu noqdo qofkii ugu horreeyey ee seerfarku u aqoonsado inuu noqdo guulaystaha su-aashaasi. waxa uu noqday guulaystaha sidaa. telefoonka uu lambarkiisu yahay 930 290 270 eber. aan ku celiyo waa 930 290 270 eber. hambalyo baanu ku leenahay. hambalyo waan rajaynayaa in daawadayaal kale oo fara badanna ay ku guulaysan doonaan oo ay heli doonaan abaalmarinta ay ugu talagashay shirkadda isgaadhsiinta ee Telesom. aynu eegno su-aasha labaad iyo cidda nasiibka u yeelata. su-aasha labaad ee barnaamijkeena kobci garaadkaaga ee dhinaca fariimaha ayaynu eegi doonaa. su-aashana waxay ku odhanaysaa muxuu ilaahay sabab uga dhigay halaagii namruud. muxuu ilaahay sabab uga dhigay halaagii namruud. doorashada koobaad waa libaaxa, doorashada labaad waa duqsiga, doorashada saddexaadna waa shabeelka. haddii aan idinku celiyo su-aashan waxay odhanaysaa muxuu ilaahay sabab uga dhigay halaagii namruud. doorashada koobaad waa libaaxa, doorashada labaad waa duqsiga, doorashada saddexaadna waxay ku odhanaysaa shabeelka. waxaan filayaa su-aashaasi bal horta aynu ogaano ta ay sax ku tahay. in badan oo idinka midi kolley mar horaa ka jawaabtay oo ay fariintaasi dirtay oo kii amaba qofkii koobaadna uu mar horeba seerfarku aqoonsaday inuu yahay guulaystaha koobaad ee su-aashaasi jawaabteeda. intiinii badnayd ee isku dayday inay garato su-aashaasi halaagii namruud waxa uu ilaahay sabab uga dhigay duqsiga. waan rajaynayaa in badan oo idinka mid ah oo iyagu aan isku dayin balse jeclaa inay su-aasha jawaabteeda helaan ay ka faa'iidaysteen. bal aynu eegna haddaba intiinii garatay iyo intiinii isku dayday. su-aashaasi cid ka soo jawaabtay ma jirto, cid sidoo kale isku dayday oo garan weydayna ma jirto. markaa sababtu cid guulaysatayna ma jirto. waan ka xunahay. waan rajaynayaa in su-aalaha xiga aad ka faa'iidaysan doontaan oo shirkadda abaalmarinta shirkadda Telesom abaalmarinta ugu talagasheed heli doontaan. bal su-aasha ku xigta iyo intiina ka faa'iidaysatay intiina garatayno eegno. su-aashan waxay ku odhanaysaa kabadda qaybaheeda waxaa ka mid ah kabadda qaybaheeda waxaa ka mid ah ta koobaad amaba doorashada koobaad oo ah jaraaco, doorashada labaad waa cadcad, doorashada saddexaadna waa jeedaley. doorashada koobaad waa jaraaco, doorashada labaad waa cadcad, doorashada saddexaadna waa jeedaley. haddii aan idinku celiyo su-aashaasi waxay odhanaysaa kabadda qaybaheeda waxaa ka mid ah doorashada koobaad oo jaraaca, doorashada labaad oo cadcada, doorashada saddexaadna waa jeedaley. waxaan rajaynayaa in badan oo idinka midii ay haatan su-aashaasi jawaabteeda direen. kolley badhna waa gartay. su-aashaasi waxay sax ku tahay
jeedaley qaybaha kabadda waxaa ka mida jeedaley bal aynu eegno intiina garatay intiina isku dayday ee nasiibka u saamixin inay garato iyo guulaystaha isagu nasiibka u yeeshay inuu habeennimadkan caawa hantiyo abaalmarinta ay shirkadda Telesom ugu talagashay. Su-aashaasi waxaa ka soo jawaabay 55% halka 45 idinka midii ay isku dayeen inay su-aashaasi ka jawaabaan balse aanay ku guulaysanin. haddaba 55% intiina su-aashaasi garatay qofkii ugu horeeyay nasiibka isagu u yeeshay inuu diro guulaystaha su-aashaasi ka jawaabay waa guulaystaha sita telefoonka 424 waa 424 hambalyo baana ku leenahay hambalyo aynu eegno su-aasha xigta iyo cidda nasiibka u yeelata inay hesho abaalmarinta ay shirkadda Telesom ugu talagashay in macaamiisheeda iyo dadweynaheeda ay jeceshahay ay guddoonsiiso. su-aashani waxay odhanaysaa biyaha dhaydana dushaa loo yar dhigaa dheriga u dambeeyo fanka loogu dhidbaa ereyga fanku waa doorashada koobaad qoobabka dushooda, doorashada labaad miskaha dushooda, doorashada saddexaadna waa garbaha dushooda. haddii su-aasha aan idinku celiyo waxay odhanaysaa su-aashani biyaha iyo dhaydana dushaa loo yar dhigaa dheriga u dambeeya fankaa loo dhidbaa ereyga fanku waa qodobka aan idhaahdo qoobabka dushooda miskaha dushooda oo doorashada labaada iyo garbaha dushooda. haddii aynu eegno su-aashaasi waxay odhanaysaa biyaha iyo dhaydana waa hagaag miskaha dushooda. waxaan rajaynayaa in badan oo idinka midii inay mar horeba fariimaha la boobeen telefoonadooda ay soo qaateen oo ay su-aasha jawaabteeda direen. miskaha dushooda ayay sax ku tahay bal aynu eegno cidda iyadu nasiibka u yeelatay inay ka jawaabto. su-aashaasi waxaa ka soo jawaabay 37% halka 63% ay isku dayeen balse aanay nasiib u yeelanin inay ka jawaabaan. haddaba 37ka gartay ayaa qof ka mid ah uu noqon doonaa guulaystaha su-aashaasi oo abaalmarinta sidaasi ku heli doonaa. guulaystaha su-aashani waa guulaystaha sita telefoonka uu lambarkiisu yahay 46 78 66 waa 46 78 66 hambalyo baanu leenahay hambalyo guulaystahaasi kasoo dhex baxay 37% dadkii gartay su-aashaasi jawaabteeda. aynu eegno su-aalaha kale iyo cidda nasiibka u yeelatay inay hantido abaalmarinta shirkadda Telesom. kuma ayuu ahaa nebigii codka wanaagsanaa doorashada koobaad waa ciise calayhi salaam, doorashada labaad waa daa'uud calayhi salaam, doorashada saddexaadna waa saalax calayhi salaam. kuma ayuu ahaa nebigii codka wanaagsanaa doorashada koobaad waa ciise calayhi salaam, doorashada labaad waa daa'uud calayhi salaam, doorashada saddexaadna waa saalax calayhi salaam. mar horeba kolley su-aashaa jawaabteedii dirteen idinkoo taabanaya xidig 3 8 gees oo isla markaasi tahay sax ku tahayna ku diraya. bal aynu eegno su-aasha ay sax ku tahay markaasi si aynu uga faa'iidaysano. su-aashaasi jawaabta ay saxda ku tahay ayaynu wada eegi doonaa. marka dambena waxaynu eegi doonaa intiina garatay su-aashaasi iyo intiina isku dayday ee nasiibka u yeelan weyday. intiina garata mid ka mida ayaa noqon doona guulaystaha isagu nasiibka u yeesha inuu hantiyo abaalmarinta. nebi daa'uud calayhi salaam ayuu ahaa nebigii codka wanaagsanaa. waan filayaa inaad in badan oo idinka midii ay ka faa'iidaysatay oo ay markaasi su-aashaasi waxaa ka soo jawaabay 47% 53
iyagu way isku dayeen balse nasiib uma yeelan inay gartaan haddaba 350kaasi ayaynu eegi doonaa 740kaasi baynu eegi doonaa guulaystaha su-aashaasi waa guulaystaha sita telefoonka 963 waa 963 hambalyo baanu ku leenahay hambalyo waa hagaag Ramadaan Kariim baan idin leenahay daawadayaal iyo dhageystayaal waxaan soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena haddii Allah awood loo ogolaado habeen dambe intaan isugu imanayno barnaamijkan ka xiga ee kobci garaadkaaga waxaan idinkaga tagaynaa Ramadaan Kariim salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh